jiray dagaalo soo noqnoqday oo ka dhaca aagga xuduudka Hiiraan iyo Ethiopia ay wadaagaan waxaa hore looga shanqariyay in dagaaladaasi ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo dagaal ka dhex wada dhinaca Soomaaliya ama Hiiraan dabcan adinka baa sheegay arrintaasi maxaa ka jira bal waxaan rabnaa in aad faahfaahin naga siiso dagaalada halkaasi ka socday la sheegay waxaad ogtahay gobolka galguduud iyo gobolka Hiiraan waxay xiriir toos la leeyihiin gelinka shanaad Soomaalida Ethiopia xiriir la leeyahay xagga deegaanka waxaan ognahay ka warhaynaa in ciidamada new police ay ku sugan yihiin deegaanka waa ognahay waa la soconaa ka warhaynaa laakiin hadda waxay isu bedeshay marka in dadkiiba ay xasuuqaan yani wada ogyahay xataa baarlamaanka ay xataa ay ka hadleen ay gaartaan arrintii ay Soomaalida meesha deganay deefoog deganay la 40 kiilo anaga noo jirta la 40 kiilo noo jirta inay marka ay isu dhiibayaan xataa hubkii oo ayaga ay marka ay qaab yani ma gartay dadkan ku barakicinayaan marka waxa soo dhan waxay ku tusinaysaa gacan saddexaad ku jirto waxaan leeyahay jeeray gacan saddexaad ku jirto halka marka wuxuu ku imaanaa guddigan 24-ka hadda magacaawne waxay soo afjaraysaa marka arrinta deefusa waxay soo afjaraysaa dhinacaan waa ogolaadeen nabad waa ogolaadeen dhinaca kalena waa nabada laga sheegay hadda way wadaan ugu dambeyn markii la gaaro hawsha ay dhax galaan waxaa soo bixi doonta in qola ka baxdo yiraahdo anaga nabad barno dagaal ah ma in yiraahdo saas soo bixi doonta ciidamadayna marka waxaan ku qasbannahay marka anaga marka ka maamul gobol ahaan waxaan ku qasbannahay inaan farigelin ku sameeyno marka taas timaado intaas waxaan dhehayni aan hadda sugayni mar haddii dib u heshiisiin socoto oo shirka u heshiisiin loo fadhiyo guddi gaarna loo magacaabo laati 4 xubnood 8 beelood oo reer Hiiraan degan loo magacaabo inaanan degdegin marka anaga waxaan ku boorinaynaa marka oo marka aad keenaynaa in guddigaas labada dhinac aan baaq u jeedinaa labada dhinac in guddigaas uu hogaansamo guddigaas waa guddi heer qaran runtii marka maxaa yeelay beelihii reer Hiiraan oo siimid aan laga soo dhaxsaaray xilkaasana loo magacaabo annaga waxay noo yihiin marka heer qaran loo yimid inaan garab siina waajib u ah deefo halkeeda wuxuu ku jiraa ciidamo boliis ah booliiska deefo liiraa magaca u yeelina niyo boliis ma haya niyo boliis Ethiopia annaga maleeniya ma naqan annaga شمسين intaan u gelin arrintaas booliska dabcan waxay u baahan tahay waxaad sheegtay inaad ogtihiin in new police ay halkaasi joogaan marka sidee ku suurta galaysaa in idinkana aad bilays geysaan halkaasi oo ay joogaan maadaama iyagu aanay idinka amar qaadanin oo ay dawlad kale ka amar qaataan haddana gobolka ay ku sugan yihiin sidaad sheegayso anaga taas oo loo kulmay iyagu joogan kula kulmay wandada liileeqata ka jira gadaasheed meesha maxaa ka haysa markaan aan waxay meesha waan ugu yahay ciidankeena Ethiopia oo meel markaas Amazon ma jiro Ethiopia Amazon markaas ma jiro ciidankeena meel walba jira anaga u baan daba taaganahay anaga saas waay meesha tan ka ilaashanayna dhibaato ma qabnayna khaas anaga dadkeena aan uga gaabsanay markaa waqtigaas xilligaas oo gaabsanay laakiin tii waxaad moodaa inay hadda sii balaaratay oo markaa ay isu bedeshay gacan ka hadal dadkii in wablo isu dhibay isu bedeshay siyaasadii markaa waxay isu bedeshay deefo inay ka tirsataa gelinka shanaad sida hadda warkan soo gaaray shiraan uu qabanaa ayaga ka dambeeyay in deefo lagu daraba macnaha dadka laga dhaadhiyay أو درجة إثيوبيا القطر غير كشمال القطر مركب أساس كلها أنا قاعد وأنا سهلان تدفع وأنا تجنو يعني واحد لب نجوم هيس إن أنقلنا ونمشي قبنا لب نجوم هيس وأنا ما كسرنا ماشي أكره عتين لب نجوم هيس مركب أنا قاعد دولة ده مصنع سنة إذا كان هو الحمد لله حل كدفع ماشي قدام بيس ومرايا على كسومالي ماشي كتاين هذا على سومالي ماشي مكان ما تدفع ما تاج على كسرنا ما جرى أنت ما جرت دجال كي قدام بيجي مدة laba maalmood ka hor ka dhacay halkaasi waxaa la sheegay in ay ciidamada hadda aad ka dhawaajisay ay ku lug lahaayeen oo ay dagaalka dhinac ka ahaayeen oo ay ku jireen waxaa magaalada Beledweyne meelan ka fogeyn fariisin kule ciidamada dawladda Ethiopia oo dalada AMISOM markaasi hoos jooga ma u tagteen wali oo ma kala hadasheen arrinta halkaasi ka taagan iyo ciidamo iyaga dawladooda ka tirsan in ay halkaasi dagaal aan sharciyeysnayn ay ka wadaan waa dhowr jeer aan la kulanay waxay ku leeyihiin anaga AMISOM warkooda dadkaasna meel kale laga xukumaa Ethiopia gudaheeda laga xukumaa anaga xukumaa anaga AMISOM aan leeyahay barnaamijkeena gaar waaye dadka gobolkaas la xaajooda warkaas ayaga ka soo baxay mar walba waxaan naga go'an maamulka gobolka taanahay inaan deefo degno oo ciidamada geeno waa naga go'an tahay ma daga baryaaya ma waa waajib muqaddas waa in anaga Soomaaliya meesha ka taagna oo qasbannahay وتاريخيستيل كاسنو هو قدومي كحجين كقبل كهيدان شيخ حسين عثمان علي ورمي وريها